habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada xarunta wararka ee dunida ee BBC London. Qodobada wararka caalamka caawa ugu waaweyn waxa kamid ah kadib habeen xun oo xisbigeeda ku soo maray doorashadii dhacday ra'iisul wasaare Theresa May waxay sii haynaysaa awoodda. maxay waqti badan iyo lacag badan u qaadataa in loo kala safro dalalka Afrika. waxaanu eegi doonaa caqabadaha haysta shirkadaha diyaaradaha ee qaaradda. iyo waliba sababta fikradda baabuur duulaya ay u noqon karto mid soconaysa. arrintan iyo kuwa kaleba waxay ku jiraan qaybta tiknoolajiyadda toddobaadkan ee Click. aynu ku bilowna London oo xalay siyaasadda Britain u ahayd habeen xiiso badan taasi oo ku dhamaatay dawlad cusub. xisbina laakiin kuma guulaysan aqlabiyad ku filan oo uu keligii dawlad ku soo dhisi karo. ra'iisul wasaaraha haatan Theresa May ayaa gashay heshiis ay ku sii joogi karto awoodda kadib markii ay gashay qamaar siyaasadeed. marka laga reebo hal kursi dhammaan waa lagu dhawaaqay kuraasta. xisbiga muxaafidka waxay haystaan 318 xildhibaan. tirada lagu dhisi karo dawlad oo ah 326 ayaanay cidina haysan. sidaa darteed waxay ku qasban yihiin muxaafidiintu in ay heshiis la galaan xisbiga DUP si ay u helaan 10 kursi ee ka dhiman. haddaba aanu si toosa u tagno xarunta baarlamaanka ee Westminster oo uu ku sugan yahay waryahayaga Axmed Xaaji Aadan oo noo haya wararkii ugu dambeeyay. Axmed, marka ugu horeysa waa sidee jawiga xarunta baarlamaanka ee Westminster? farxano waad mahadsantahay. meeshan jahwareer badan baa ka taagan. waxaa loogu yeeraa xarunta dimuqraadiyadda ee dalkan UK oo dhan laga maamulo. hase yeeshee maanta siyaasiyiintii afka ayaa gacanta u wada saaran oo arrin lama filaan ayaa ka dhacday kadib markii xisbiga talada haya kuraastii badnayd uu lumiyey. asigoo markii hore aqlabiyadda haysay doorasho lagu dhawaaqay waxaa dhacday hadda marka kuraastii inay lumiyeen. taas ayaa keentay in siyaasiyiintii afka gacanta u wada saaran tahay la isweydiinayo maxaa dhacay, maxaa ka qaldanaa, siday wax noqdeen. qaarkood waxay leeyihiin qaabkii ololaha doorashada loo galay ayaa qaldanaa. qaar waxay leeyihiin Theresa May qaabkay u wajahday dadweynaha ayaan fiicnayn oo ma ahayn mid isku aadisan oo hagaajisan. waxaan meelaha qaar ku soo aragnay xataa dad fadhiya oo boorar sita oo dhahayo xisbiga muxaafidka ee talada haya waqtigiisii hala soo afjara maadaama uu codadkii iyo tiradii kuraasta ee uu rabay uusan helin. marka sidaa darteed waxay ku talinayaan in xisbiga uu mar kale meesha ka baxo oo dawlad kale la soo dhiso ama doorasho kale la galo. haddaba Theresa May maxay uga dhigan tahay arrinta? waxay ahayd calaamadda ololaha Theresa May, awood iyo xasilin, laakiin taasi maysan dhicin. May waxay heshay awood ay ra'iisul wasaare ku sii ahaato, balse ma aysan helin aqlabiyad, wayna ku qasaartay doorashada ay ku dhawaaqday. waxaan soo arkay boqoradda, waxaana soo dhisayaa dawlad xoojisa kalsoonida shacabka una hogaamisa Britain horay wakhtigan muhiimka u ah dalkan. dawladdan waxay ku hagi doontaa dalkan wadahadallada muhiimka ah ee ka bixidda Yurub oo bilaabanaya 10 cisho gudahood. waxaana ku shaqayn doonaa rabitaanka shacabka ee ah in Britain ay ka baxda midowga Yurub. Theresa May bilo ka hor markay doorashada ku dhawaaqaysay waxay filaysay in aqlabiyadda aqalkan ay hesho oo kuraasta baarlamaanka ugu badan ee xisbigeeda Conservative-ka uu helo, balse taasi maysan dhicin oo xisbigii mucaaradka Labour-ka ayaa kuraas badan dib ugu guulaysay. xisbigii Conservative-kana kuraas ayuu lumiyey. haddaba waxay ka fikiraysaa Theresa May qaabka ugu wanaagsan ay dawlad ku soo dhisi karto ayadoo aan xilkii ka tagin oo iscasilin. markii xalay codaynta ay dhammaatay waxaa soo baxday in Conservative-ka ay hogaaminayaan baarlamaanka aqlabiyad la'aan. waqti yar ayuu wejiga xisbiga talada haya isku beddelay. hogaamiyaha mucaaradka Jeremy Corbyn xisbigiisa wuxuu u dabaaldegay 29 kursi oo dheeraad ah oo ay heleen. ra'iisul wasaaraha ayaa doorashada ku dhawaaqday si ay awood u hesho, waxayna noqotay awoodda luminta kuraasta xisbiga muxaafidka, codad taageero iyo kalsooni. waxaan filayey in intaasi ku filan tahay si dhabtii ay u tagto. Labour-ka waxay heleen 8 kursi oo caan ay ku ahaayeen Conservative-ka, waxayna meesha ka saareen xubno muhiim u ahaa xukuumadda May. dhanka Scotland xisbiga Conservative-ka waxa uu u dabaaldegay guushii ugu fiicneed muddo 30 sano oo halkaasi ka helo. xisbiga dimuqraadiga ee Northern Ireland oo 10 kursi helayna Theresa May ayuu taageerayaa si dawlad ay u soo dhisto. ayadoo dadka qaar ay dabaaldegayaan, Theresa May sidaasi uma aha. wadahadallada Brexit maalmo gudahood ayay ku bilaabanayaan. Mrs May inay xilka waqti dheer sii hayso shaki ayuu gali doonaa.
mahadsanid axmed oo ka soo warramaya Westminster. Faahfaahin dheeraada oo ku saabsan natiijada doorashada UK iyo warbixino kaleba waxaad ka heli kartaa bogayaga bbcsomali.com adiga oo ka galaya mobilkaaga. bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta. ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay oo badankoodu shacab yihiin magaalada Baydhabo ee koonfurta galbeed ee Soomaaliya kadib markii ay maanta askar isku dileen cunno loogu talagalay dadka abaaruhu ay hayaan. goob cuntada lagu qaybinayay ayay ku dagaalameen ciidamada dawladda oo ay deganayeen barakacayaal. Donald Trump ayaa Twitterkiisa ku qoray in uu la yaabay caddeynta uu siiyay Congress-ka madaxii FBI-da ee xilka laga qaaday James Comey. Shalay ayaa Mr. Comey uu u sheegay guddiga Congress-ka in madaxweynuhu shakhsiyan ku socon wax baaritaana oo la xiriiray faragelintii Ruushka ee doorashooyinkii madaxtinimada ee sanadkii hore. sarkaalka ugu sarreeya xuquuqda aadanaha qaramada midoobay Zaid Ra'ad Al Hussein ayaa ku baaqay baaritaan caalami ah in lagu sameeyo waxa uu ugu yeeray xadgudubyo ballaaran oo ka dhana xuquuqda aadanaha oo laga geystay Kasai oo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo. qaramada midoobay ayaa diiwaan gelisay in ka badan 40 qabuuro wadareed dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay la helay, laakiin waxa ay sheegeen in tiradu intaa ka badan karto. hantida shakhsiyadeed ee uu leeyahay ninka Shiinaha internetka caanka ku ah ee Jack Ma ayaa la aaminsan yahay in ay kor u kacday hal maalin $3 bilyan. arrintan ayaa soo shaabacday markii shirkadiisa Alibaba ay soo saartay lacag ka badan intii la saadaalinayay. ganacsiga internetka Mr. Ma waxa uu bilaabay 1999kii oo uu ku bilaabay $60,000. bal ka waran adigoo raba inaad Afrika u kala duusho dhexdeeda, laakiin waxaad ogaatay in caasimad Yurub ku taal inaad u dhoofto ay ka qiimo jaban tahay. tani waa xaqiiqo ka jirta wadamada Afrika dhexdooda. Ghana ayaa ah dal ay shirkadihiisa diyaaraduhu ay hor yaalaan caqabado badan. Cabdiraxmaan Bidhaan ayaa ka warramaya. sharkadaha diyaaradaha ee ka shaqeeya gudaha dalka Ghana ayaa sanadadii ugu dambeysay waxaa ku yimi hoos u dhac. awal waxaa jiri jiray 5 sharkadood oo diyaaradood oo gudaha ka shaqeeya, laakiinse iminka waxa isku soo haray 2 qura. Starbow waa sharkad ka mid ah kuwa soo haray, waxaanay suuqa Ghana soo galeen 2011kii, laakiinse waxa ku adag in ay suuqa ku sii jiraan. The spares are very expensive. qalabka dayactirka aad ayuu qaali u yahay. midka diyaaradahana waa kan ugu qaalisan meel kastoo dunida. mashiinka diyaaradda 200 ilaa iyo 500 oo kun ayuu joogaa. haddii aad qalab caynka ah Ghana keento, canshuur badan ayaa kaaga baxaysa. bal qiyaastaas. sharkadda kale Amtrak Air ayaa iyaduna waxay noqotay mid imika gabi ahaanba joojisay oo hakisay duulimaadyadeedii si ay wakhti ugu helaan ay dib isugu habeeyaan. inkastoo dawladda imika jirta ay hoos u dhigtay cashuuraha laga qaado duulimaadka, haddana tigidhada diyaaraduhu aad bay qaali ugu yihiin dadka gudaha waddankaasi isaga gooshaya. waxaana dhacday in 40% ay hoos u dhaceen 2 sannadood ee ugu dambeysay. hoos u dhaca ku yimid qiimaha lacagta Ghana marka loo eego dollarka ayaa iyaduna waxay keentay in suuqaasi hoos u sii dhaco, iyadoo aad arkayso in mararka qaarkood meelaha diyaaradaha laga duulayo ee terminaaladihii ay yihiin qaar cidhiidhi ah oo aanay dad badan qaadi karaynin. dad badan oo reer Ghana ayaa dawladooda ku canaantaa in ay samayn kari weyday jawi lagu ganacsado oo ay diyaaraduhu qiimo jaban dadka ku qaadaan. dawladda ayaa imika sheegtay in ay samaysay qorshe ay rajaynayso inuu kor u qaadmo duulimaadyada iyo ganacsiga hawada. dad fara badan oo ku nool qaaradda Afrika ayaa imika iyagu waxay rabaan in ay duulimaadyo sameeyaan oo ay hawada isaga gooshaan. 80% gaadiidka hawada ee ka howlgala Afrika ma aha kuwa Afrikaan ay leeyihiin. dalkeenna iyo shirkadaheenna weli waa xiran yihiin. arrintii ahayd in isku socodka hawada la furana weli lama dhaqangelin sidii la filayay. ururka midowga Afrika ayaa dawladaha Afrika ugu baaqay in ay hawada furaan si diyaaradaha gudaha ka shaqeeya Afrika ay u kala gooshaan si fudud. haddaba caqabadaha hor yaala duulimaadyada shirkadaha Afrika maxay yihiin? gudoomiyaha shirkadda Dalo Maxamed Yaasiin Colaad ayaa isagoo jooga Dubai waxa uu nooga warramayaa waxay yihiin caqabadahaasi. waxaan la kulanay caqabado badan iyo dhibaatooyin badan baan noo muuqday. marka dhibaatooyinka ugu badan ee haysta waxa ka mid ah horta marka ugu horeysa Afrika dhaqaale ahaan way hooseysaa, dadka safraana waa yar yihiin. waxa weeye Afrika population-kooda ama tiradooda waa 2% adduunka, 1% way dhoofaan. taasi waxay keenaysaa in qiimaha dayar sare u kaco. talabaad waxa weeye infrastructure-ka ama kaabayaasha dhaqaalaha guud ahaan oo hooseeya ama aan horumarsanayn. hadday tahay airport, hadday tahay deked iyo hadday tahay wadooyin, taasina dhibteeday leedahay.
saddexaad waa siyaasadda Africa oon ku wajahnayn inay hore u mariso airlineska waayo waa siyaasad xidhan baac mushtarkii baa xidhan waxaan jirin heshiisyo ka dhexeeya gudahooda gidaaro ayaa dhisan maxay ahayd Africa dhexdeeda taas ayaa loo baahan yahay iyaduna inay meesha ka baxdo markana ciyaarihii waxaa jira kulamo koobka qaramada Afrika oo toddobaadkan la ciyaarayo bal aynu eegno qaar ka mid ah ciyaarahaasi kooxda koobka haysta ee Cameroon ayaa bari la ciyaaraysa waxay ishayaan Morocco Sierra Leone waxay la ciyaaraysaa Kenya axadana Ghana iyo Ethiopia ayaa isku dhagan Tunisia iyo Masarna iyaguna way ishayaan Manchester United ayaan la filayn in aanay heshiis cusub la galin weeraryahankooda Zlatan Ibrahimovic markii uu dhamaado kontraadka 30 bishan June 35 jirkan ayaa ogolaaday in heshiis hal sano uu qaato mid labaad loogu dari karo laakiin in loo kordhiyo waxa saameeyay markii dhamaadka xilli ciyaareedka uu jilibka dhaawac ka soo gaaray orodyahanka reer Jamaica Usain Bolt ayaa sheegay inuu wacdaro dhigi doono isagoo isku diyaarinaya orodkii ugu dambeeyay ee dalkiisa uu ordo maalinta Sabtida isagoo saxaafadda kula hadlayay Kingston oo ay la joogeen Mo Farah iyo ciyaaryahano kale ayaa Bolt waxa uu sheegay in orodka uu ku sameyn doono wadankiisa ee ugu dambeeyay uu noqon doono mid shucuur leh wuxuu rajaynayaa inuu ka fariisto ciyaaraha tartanka horyaalka adduunka ee London oo dhacaya bisha August markana ku soo dhawaada barnaamijka tiknoolajiyada ee Click Cusmaan Cabdi Xasan ayaa noo haya gawaarida wadooyinka sawirada ka qaada ee Google ayaa sanad la socday xog ururinta jaamacadda Texas ee wasaqowga hawada wadooyinka Oakland xog laga qaaday 30 mitirba ayaa muujinaysa cabir ballaaran oo suuragal ka dhigaya heerka tayada hawada oo aanan isbedelayn xogtan ayaa caawinaysa dadka nugul iyo kuwa dhibaatooyinka neefsiga qaba Shiinaha ayaa sheegaya inay meel sare ka gaareen farsamada salka u ah qodista gaaska dabiiciga ee ku jira badda koonfurta Shiinaha gaaska hydrate-ka ayaa isugu jira biyo iyo gaaska dabiiciga oo fariistay dab ayaa la qabadsiin karaa marka uu fadhiyo waxaana la rumaysan yahay inay ku jiraan mid ka mid ah shidaalka ugu badan ee qolfoofta ka yimaada khubarada ayaa sheegaya in wax badan la soo saaro ay qaadanayso sannado badan shirkadda Apple ayaa soo saartay HomeBed oo ah sameecad cusub oo codka hagta aaladdan ayaa dhammaystir u noqon doonta aaladaha kale ee la yidhaahdo Amazon Alexa iyo Google Home waxayna suuqa soo gelaysaa dhammaadka sanadkan iyadoo $359 ah Apple ayaa sheegtay inay aaladdan og tahay meesha codka tooska ka imaanayo haddii aad dhexda ka dhigto qolkana waxay u baahin doontaa dhinac kasta balse waxaad dhigaysaa geeska markaas ayay derbiga ka fogeynaysaa codka iyadoo kuwa gawaarida sameeya ay ku tartamayaan inay soo saaraan gaarigii ugu horreeyey ee duula ayaa duuliyo u dhashay waddanka Jack oo la yidhaahdo Buffel Bazani uu duuliyey gaarigaasi wuxuu leeyahay gaarigaasi 2 kursi xawaarihiisuna wuxuu gaarayaa 40 kilomitir saacaddii si uu duulo wuxuu u baahan yahay in ka yar 100 mitir marka uu hawada galana waxa uu xawaarihiisa noqonayaa 180 kilomitir saacaddii qiimihiisa ayaa ah $63,500 ugu dambeyntiina xilliga ay firaaqada yihiin xidigaha tartanka baabuurta ee Formula 1 waxa kan ayay sameeyaan darawalada kooxda Red Bull la yiraahdo Daniel Ricciardo iyo Max Verstappen ayaa waxa ay doon la ku dhaceen Canada hawsha wadista wax ku cusub ma ahayn laakiin waxa ay sheegeen in hirarka waaweyn ee biyaha ay cabsi aad u geliyeen wararkan iyo kuwii ugu dambeeyaba waxaad kala socon kartaa oo aad ka helaysaa boggeena bbcsomali.com inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeennii caawa waad ku mahadsantihiin habeen wanaagsan